xildhibaan xasan cawaale caynaan oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Somaliland laga soo doortay gobolka Gabiley ayaa maanta lagu dhex garaacay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland sida uu sheegay xildhibaanku waxaana xildhibaanka gacan u qaaday taliyaha aqalka madaxtooyada Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xildhibaanka wallahi golaha anagu joognaa madaxtooyada anagu joognaa ayaa nin xildhibaano ila socday ayuu nin gacanta ku soo fiiqay deetana waxaan ku yiri war wax xildhibaanay aad gacanta ku soo fiiqin deetana ninkii wuxuu tagay taliyihii ordaya ayaa markaa halkii igu yimid deetana Fred aanan ogeyn arkayna ayuu igu dhuftay dib baan u dhacay deetana askartiina warkaas way igu soo yaacday nin walba dhinac buu qabtay uu jiiday qaar baa dhirbaaxay runtii dhaawac weyn baan qabaa oo markaa wadnaha wallahi waxaan ku sugnay